الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وزيرك إسكارسينته وزيرك وزير الدولة بيرها مدحضة هير قبل هير دقمو مدحضة ينوغن تمي دقموين كاينو شاركا نهي اللي بانادا هير قرن يقوه هير دقمو صلاة aqooyaanka bulshada heer awdal dhammaan bahda saxaafadda ganacsatada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. runtii munaasabadan maanta sharaf weyn bay ii tahay in aan maanta xilkii wareejiyo sababtoo ah xilka dawladda waa meerto kolba halka madaxweynuhu loo yigmado ayuunbaan waaba uu noo garto ama xilka qaadis lagu sameeyo ayaanu ku amar qaadanaynaa. waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa muddadii aan joogay iyadoo markhaatiyo badani noo dhaceen ilaahayna wax badan isugu kaaya hagaajiyey. guddoomiyaha cusub waxaan leeyahay guddoomiye aniga maalintii xil wareejintayda sidan oo kale may ahayn runtii gobolka indhihiisu way ka duwanaayeen shicibka werwer badan baa ku abuurnaa dawladda shaki badan baa ku jiray 5 kiiloomitir 270 ciidan ayaa magaalada loo dul fadhiyey 2500 oo ciidan oo ciidanka Soomaaliland oo iyana doonayeen inay magaalada difaaca baa joogay. sidaa darteed xafladan oo kale maanaan qabsan ee qola xaflad ku lahayd oo dhalinyaro ahayd ayaanu dulsaar ku noqonay aniga maalintii xilka lagu wareejinayay. marka maanta runtii sharaf weyn bay ii tahay maanta oo aan xilkii tirinayo inaan madashan quruxda badan ee salaadiintii u dhan tahay aqoonyahanka u dhan yahay madaxdii qaranku joogto in aan isugu wada nimaadno. waxaan runtii ilaahay ayaan mahaddaasi u naqayaa iyo dadweynaha gobolka oo aad iila shaqeeyey khaasatan odayaasha indheergaradka oo aan runtii nabadgelyada aad iyo aad igala shaqeeyey taasoo ilaahayna runtii nagu guuleeyey. halkan markii lay keenay dad baa waxay u haysteen shiinow in laygu garaacayo cid khaasa laakiin ballankii madaxweynaha kaga yimi muu ahayn sidaasi. wuxuu igu yidhi gobol xasaasi ah oo boorama la yidhaahdo awdal la yidhaahdo oo wax badani ka jiraan oo tabasho badanina jirto ayaan rabaa xaqiiqada inaad iiga keento dadka halkaa joogana inaad midnimo ku dhaqdo ummaddiiyo dawladdana la is-afgaradsiiyo oo inaanay cadow dawladdu ku ahayn loo tuso. waxaa halkan ka sii muuqatay waa ogeedo halkan madaxweyne daahir riyaale ayaa ka soo jeeday madaxweynuhu maadaama uu ka soo jeeday tartan wadagaleen kulmiye dee xusbigani wuxuu dad gobolkan iyo gobolka saaxilba waxay ahaayeen xusbigii la odhan jiray udub maadaama madaxweyne ka soo jeeday. runtii mucaaradada halkaasi taagnayd looma agaasimin sidii ay ahayd barasaabkii hore oo maantana wasiirka gobolkiina wuu fadhiyaayoo runtii nin adag oo weliba maamaayo kula baxay maanta waa layga mamnuucay inaad cid maagee oo kulley odayaashaanu wada hadale laakiin xaqiiqada jirta baan runtii in yar ka taabanaya. waa wasiirkeenna cusub waxaa runtii arrintaasi oo qaabkii loo agaasimay ama mucaaradada ama tabashooyin marka la yidhaahdo runtii waxyaabo badan bay kalifaan ee siyaasiyiin dabada ka wado ee siyaasiyiintii dawladda ku jirtay ee gobolka matalaysayna ama ha noqoto xildhibaano ama ha noqoto wasiiro ama ha noqoto madaxweyne ku-xigeen ay sideedii u agaasimi waayeen waxay keentay kacdoon badan oo runtii gobolka ka jiray oo gacan siinayey iyadoo loo arkayey xusbigii kulmiyadda ilay may ahayn reer
dhowrka wasiir ee la siiyey iyo reer saaxiibo iyagoo madaxweyne ku-xigeenaya 3 wasiir lahaa ayaa hal wasiir lagu soo reebay ilaa may dooranin madaxweynahan kulmiye ka soo baxay laakiin labadii arrimood way isku waayeen labada gobolba kacdoon baa ka bilaabay xaqiiqadu saasay ahayd waa waxyaabaha dadku tabanayay laakiin markaanu u geynay madaxweynaha xaqiiqadiina uga waranay anuu reer bari baan ahoo horta markaan boorama imi umaan haysan sidaan ugu imiinay tay xaqiiqada wanaagsanay waxaanu haystay gobol dhisan gobol laamihii dawladda oo dhammi ka wada jiraan gobol shaqaalaha ugu badan iyagiyo hargeysa ay leeyihiin tiina been bay noqotay waxaan u qoray 22 page baan ku qoray markaan hal wiil joogay gobolka waxyaabaha gobolka runtii ka taagan ilaahay wuxuu nagu guuleeyay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiiradiisu anagoo qaarkood anagoo amarkiisii fulinayna inay waxyaabo badan dabeedna gobolka nooga qabsoomaan waayo waxa la wada leeyahay ayaa wax tara ee waxba ma tarto kursigaan anigu ku fadhiyaa imika aniga iyo qoyskayga ayuunbuu ku filayay laakiin markaan guto waajibaadkii laygu lahaa ummadda waxbaan ku tari karaa meel kastoo aan joogo sidaa darteed waxa ilaahay nagu guuleeyay anagoo amarkii madaxweynaha fulinayna oo aan halkan runtii ka xusaayo wasiirka zamzamna runtii aan xusaayo oo waxyaabo badan nala qabatay oon xusaayo odayaasha salaadiinta khaasatan oo iyaguna runtii si fiican isu kaaya garab taagay waxa noo qabsoomay hay'adihii dawladda ee ay halkaa ka maqlayseen in qaarkood dhismaan qaarkoodna ay naga naaftaan oo aanay weli dhismin sababo jira dartood waxaa loo dhismay 9 dhisme ayaa dhismay oo ugu horeeyo guriga wasaaradda maaliyadda oo 25 sannadood guri kiraa ku jirtay waxaa dhismay gurigii martida oo aanay ahayn halka tuulooyinku ay ka leeyihiin uu lahaa gobolku alxamdulilaahi rabbil caalamiin meel fiicanna maraya dhammaystirkiisiina maanta uu taagan yahay waxaa noo dhismay dawladda hoose oo fooqa aragtay laga taagay waxaa noo dhismay ciidanka oo lagala mid dhigay taliska dhexe ee Hargeysa oo qalab aad u wanaagsanna runtii lagu oo nabadgelyada wax ka tarayaana inoogu rakiban yahay oo ay tahay waxyaabaha ay kaga duwan tahay boorame marka la yiraahdo qof baa soo galay isla markiiba in ay gacanta ku dhigaan ciidamada booliisku sida ay gobolada barigu laayihiin weli taasi oo qayb weyn ka qaadatay in ay gacmo kale runtii ina soo farageliyaan aad iyo aad waan ugu mahadnaqayaa ciidamada amniga oo qayb libaax runtii ka qaatay hadday tahay booliiska hadday tahay militariga hadday tahay nabad sugidda iyo ciidamada kale hadday tahay ciidanka ilaalada xeebaha iyo hadday tahay ciidanka jeelkaba ciidankaas lugta loo dhigto Soomaaliya runtii waxa loo dhismay wasaarado dhowr ah wasaaradahaasi xaq baan ugu leenay balasaabku xaq buu leeyahay waxa uu ka wakiiliyay madaxweynaha wasaarado oo dhan isaga wakiilka in ay mid waliba shaqadeedii ay qaranka u haysay gudato taasi waxay soo kordhisay shaqaale cusub waxay keentay in aanu dardar galino maamulkii oo runtii kacdoonkii halka ka jiray wax badan naga tartay waxaanu dhalinyarada u qabanay 152 kooxood oo ciyaartooya ayaanu u qabanay inaanu kubada ciyaarsiino iyo inay ka jeestaan waxyaabaha dadku ugu jireen ama taariikhda ama siyaasadda ama qabyaaladda ee runtii markaasi wax weyn runtii way naga tartay waxaan u dirnay safaro 136 kooxood oo dhalinyaro ayaan u dirnay min Berbera Burco Hargeysa Gabiley Laascaanood Ceergaabo kooxahaasi oo isugu jiray ardayda jaamacadaha kuwa sekondariyada iyo kooxaha kubadda ciyaaraba taa iyada oo gelinay kharash aad u badan inaanu siino shidaalkooda inaanu gaadhigooda u kirayno in ay arkaan in nax u yaala xagga bariga lagu buuxiyay inaanu jirin
waana mid waajib ku ah shiinana waan kula dardaarmayaa inuu halkaasi ka sii wado oo dhalinyarada la tuso way la yaabeen maalmihii ugu horeysay saddexdii kooxood ugu horeysay berbera u dirnay markay arkeen niman samaroon oo ka shaqaynaya dekada berbera ka shaqaynaya waayo uma haysanba waxa la beesha dhaxaa qaadatay taasina waa siyaasiyiintu markay wax doonayso ay had iyo jeer wax ku tahay laakiin wax weyn oo wadaleene meel walba waa laga shaqayn karaa runtii taasina intaasaan leeyahay waxaan runtii xusid mudan oo aanan marnaba ilaaweyn dhibaatooyinka naga hor yimi ee meelahaananu filaynin oo nagaga hor yimi waxaan aad iyo aad uga xumahay markaad gobolkii u doonayso anuu maanta gobolkaa jegana kala tegi maayo lacagna kala tegi maayo waxaan halkan maanta ku wareejinaya lacag $80,000 oo gobolku leeyahay dadka gobolku leeyahay oo aad shaqaalaha maqan وما ما يعني لا يقول ما تاس مدحويني soo dirtay baan ka balanay waxa weeyaan inaanay waayin wuxuuda waxa taas uga socda shaqaalaha lahaa baa waxa barasaab ka tito waxa weeyaan 24 ku waxa leh lacag shaqaalaha ma la tafsiiraya ma aha lacag markaan hadda xukuumadda u tiro loo odhanayo ribaax ma lacag doonaya waxa maqan waa wixii magaalada ka maqan inaan baadi doono sideedana u dhamaystiro iyadana ballankaasi horena waanu la galay imikana waa gelaya odayaashuna waa wada baqlayaan wixii aan uga baahdana maxaabara saabka gacan bay siinayaan baadi doonkeedana waa ku maqanay insha Allah mudayro dhowna way loo soo dhamaystirmaysaa laakiin waxaan runtii ilaaway halka imika waxa fadhiya taliyii tabtabiska fadhiya saako ugu dambeeyay hawlgal bay galeen waxaan ku soo gaarsiiyay halka dawladda waxba ma siiso gulnadayda inaan siiyo ayaan halkaas runtii ku soo gaarsiiyay waxaan gaarsiinay inaan kala wareego maadaama dawladda ka wakiilay markii aan ugu soo dhamaynay in lagu daro miisaaniyadii in niman gobolkii runtii ay ka hor yimaadeen anuu hadduu yahay maxamed case hadduu yahay iyo hadduu yahay makaayil iyo hadduu yahay habar cafaan iyo qof ciise muuse waa miyadu ku jira 20 qof ee shaqaalaha waa 20 magaalada in ragga qaarkii ku xisaabtamaan heerheelba halkaasi loo badiyay runtii aad baan uga xumahay waxaana leeyahay kuwaasi barasaabka dambe wuxuu idin soo helana habula kicina garabka qabta magaalada waxa uu soo kordhayay meel uga soo wada jeeda waliba rag uma dhawe waa laba nin oo labada nin oo xalay waxba magacooda sheegi maaye ka waantooba waxa sale taasna maanta intaasaan taas ku soo gaabinaya cid maaga maayo laakiin waxa weeyaan arrin gobol walba looga baahayay dadka ka soo jeeda wixii gobolkooda u soo kordhaya inay ku farxaan bay ahaydeen inay runtii si kale u dareemaan runtii aad baan uga xumahay waxaan runtii raacsanayaa dhalinyarada markaa ka hadlayay garoonkii horrooryaalo oo aad ogtahay shiilooyo xaggaa ka wada shaqaynay ninkani waa ninkii haddii ciduuni bedeli lahayd aan ugu jeclaan runtii inuu bedelo waayo manasaabadu dee xulfiyaanu kala nahay ninkan isku xulfi baanu nahay hawlahaanu gobolkaan laga waday iyo kakan laga waday iyo ka saaxil laga wadana saddexdayaduba iskaga mid baanu ahayn qolobo koox bay isu kooxaysataa isku koox baanu nahay iminkana waxaan filayaa inaan halkan waxyaabihii naaftay ama waxa boroseska ku jira ee aanu sii diyaarinay ee iminka miisaaniyadda gelinay sideedaan ugu wareejinayaa wixii aan kala qaban karana sida uu laascaanood igala shaqaynaya baan halkanna ugala shaqayn doonaa waxaan rajaynayaa in meelo badan uu runtii shiina igaga wanaagsanaan doono oo aniga mararka qaarkood isagu iga yaraa maakhirisay yahay oo waa nin reer ceergaaba markaa kulley hadalladayda marar baa la dhibsadaa inkastoo inta badan dib laygu soo noqdo inaanu yeelan hadalkii aniga allaayee kulley rag badan aanu isku yara dhibsan jirnay ma yeelan doono oo waxyaabaha la igaga raysan doono laakiin waxaan filayaa insha allahu tacaala isaguna waa nin maakhiriya
ما خبرتي وكسو شقيي مررك أنا فكروا أي سجنوا يرجعوا يعني قالوا سجيا حقيقة ويا ما تشوفنا هذا كثير ويا حقيقة دولة وسه قبلي وبالكلام يديك الرجال بدي كلام بانرود بيدا إرجعوا أورتي كائن مكان كتاعنا وكلا أي كتوريسي أي قعوي نسيان وحبضنا الرتي قلا قبتين حقا إرجعوا دادان مكباش وكبادنا الرتي ويمن دونان وصاحب بدي هل كان يهل كابو والكود الشقين دون هذه لا يكلمه وعاشينه هذه أتكون بضمنا يا الشقين تدلينا قرون كيروك ويلا وحرتي كالة الدارمية مومان بكوجرة ميزانية بكوجرة تدور بقول يكون مليون وكوجرة تبتمسك إن كستوانا يعين برعان كي لبده مليون كقارتي سلطان لبده مليون ببرعان وكوجرة محاك يعني مبور مال النعبيه ومايا وعك يعني ما يركودي يبرزاب كودي يورياشوري ورمانيتاي تيماده وحيلان waxaan jeclaan lahaa inuu fadhiyo inanka miisaaniyada dalka ayaa waa nin reer boorama kaysa miyuu joogato shalay uu inala joogay Soomaaliya waxa weeye waxa yiraahdaa 200 kun baan haysanaa intaan u baahanahay inuu waa 500 kun 300 dawlad waa naga bixiso saddexdii waa laga bixiyay laakiin anigu waa kan maayarkayga inoo lacag la hayo ganacsatada nashidin bixin mayso salaadiintina lacag ma hayaan reer galbeed ma yara noqoteen hatta haddaydan haynida waxa waan haysanaa baa la yiraahdaa mar wax xirfado badan ku isticmaalaaye dekeligay baa tago 750 milyan qaade baa la yidhi taasna waynu ka daba tegaynaa shiirow qolada gobolka la tufayso u noqon doonaan wixii ay bixinayaan ama dawladda saama noqoto ama ha noqoto ganacsatada waa arrin muhiim ah inaynu kordhino miisaaniyadda aan mutiilaas cano baan ka shaqaynayaa tagoorna waa ku sii tilmaamayaa hawshaasna way ku taala waxa kala runtii iyadana aad iyo aad ugu faraxsanahay in laga ogolaaday la bareerigi oo la bareeri weyn waa kan imika aniga suldaankeeyga waa kan imika idila hadlayay barbaray imika la dhisaya barigaas aanu gelinay 2 sanadood uu naafay intii uu joogay marasaabkan cusub ee aanu ka daba tagnay waa dhismihiisii baa socda kana wuxuu noqon doonaa midka barbara laga dhisaayo mid lamida ilaa iyo 8 qofna runtii shaqaalaya waxa weeyaan shaqaalaha la doonay waxay ku abuurmaan markaad xafiiskii samaysato daway imanaysa shaqadii waxaan isagana runtii aad iyo aad agaasimaha loo soo magacaabay agaasimaha guriga guryaha martida magaalooyinku shaqa abuurkay ka mid yihiin guri waliba 30 ama 40 buu xukumaa oo waxyaabaha soo kordhinay runtii shaqa abuurka ku tilmaamayo hawl badan baa runtii taala ilaa 6 mashruuc oo waaweyn oo gobolka laga qabanayo ayaanu hadda miisaaniyadda idin gelinay taasina barasaabka cusub ayaa ka shaqay doona waxaana ku rajaynahay sidii kuwii ugu wareejiyay dhamaystirkooda inuu isaguna ilaahayna inuu fududeeyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan runtii u mahadnaqayaa dadka gobolka waxaan runtii ilaaway oo animaka halkan ay ugu qoran gobolka maalintaani hal ambalaas baa joogtay oo jaban maantana 8 ambalaas hal degmo oo ambalaas aan lahayni ma jirto 8 ambalaasna waxay ku yimaadeen waa gobolku waa gobol buuralaya waa gobol xeeb dheer leh waa gobol aad u ballaaran dhibaato badan baa runtii dadka ka haysatay ilaahayna uu nagu soo guuleeyay runtii waxa kala runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha reer awdal sidii laxaadka lahaa ee qayladaatii abaartii aan ku baaqnay ay runtii aad iyo aad uga qayb qaateen taasoo faa'iido badan inoo soo kordhisay oo nimcadii ilaahayna ay noo furatay markaynu dadkii halkaa ku tabaalaysnaa ee gurmadka runtii u fidinay taayada oo aynu faa'iido badan ka helay bil walba wuxuu qaataa gobolku 1 milyan iyo 500 oo dollar in ka badan oo si dadku abaarihii ugu soo kabtaan aynu imika ilaa muddadii ay qaadanayeen oo dadkeennii jilicsanaayeen reer miig laakiin in la isdhigta maaha waa in laga faa'iideeyaa oo lacagtu way ku haysaa dee waa kaa roobkii inoo daaye inta sanadka ka hadhayna way u sii soconaysaa ilaahayna ay naga hayo
shiina waxaan ugu darayaa maalinta gobolku yimi abaar xun ayaa soo haysay maanta sabab gobol barwaaqo meel walba caani looda iyo caani geela ka soo gelaya howlii way naaxeen alxamdulilah waa ku nasan doontaa aniga si hawl adag baa runtii xaggaasi ii taala waxaan ka codsanayaa dadka gobolka dhammaantiin inay idinigu soo dacaysaan hawshaa ilaahay inuu ii fududeeyo oo xilkaasi la ii maday in ilaahay sida kan oo kale dadka ii sakhiro oo ay ila shaqeeyaan waxa weeyaan gobolka awdal waxba maanaan qaban karneen haddaan ragga halkaa fadhiyaan runtii nala shaqaynaynin ee nooc walba leh rag iyo dumarba runtii taasi baana ilaahay nagu guuleeyey waxaan kugu wareejinayaa gobol nabadgelyo waxaan kugu wareejinayaa gobol qurxoon gobol barwaaqo ilaahay adigana xilkaasi ha kugu asturo ku soo dhowow guddoomiye salaamu calaykum